Sanadkii 1992, Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa go'aamiyay in Soomaaliya loo diro ciidamo nabad ilaalin ah oo uu hogaaminayo Maraykanka. Isla sanadkaas dabayaaqadiisii waxaa magaalada Muqdisho soo gaaray ciidamada badda ee Maraykanka waxayna bilaabeen howlgal loogu magac daray Howlgalkii Rajo Soo Celinta. Hal sano kadib, dowladda Maraykanka ayaa hogaaminta ciidamadii howlgalka ka waday Soomaaliya ku wareejiyay Qaramada Midoobay, waxaana howlgalkii la wareegay ciidamo shisheeye oo gaaraya ilaa 35,000 oo askari. Waxaase soo ifbaxay khilaaf soo kala dhex gala ciidamadii Qaramada Midoobay ee howlgalka lagu wareejiyay iyo Genaraal Maxamed Faarax Caydiid oo xilligaas haystay goobihii muhiimka ahaa ee caasimadda Muqdisho. Khilaaf kadib waxaa dhacday in Maraykanku duqeeyo goobo muhiim ah oo ku yaalla caasimadda, kuwa oo ay ka mid ahaayeen Radio Muqdisho iyo goobo kale. Caradii ka dhalatay duqeyntaas ayaa sababtay in weerar lagu qaado bishii Juun sanadkii 1993 ciidamadii Qaramada Midoobay ee howlgalka Muqdisho ka waday. Weerar lagu qaaday ciidamadii Pakistan ee howlgalka qaybta ka ahaa waxaa lagu dilay 24 askari waxaana lagu dhaawacay ilaa 60 kale. Weerarkaas kadib Qaramada Midoobay ayaa ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah Genaraal Maxamed Faarax Caydiid. Ciidanka Maraykanka ayaana gulufka colaadeed hoggaanka u qabtay. 3 Oktoobar 1993 ciidanka sida gaarka u tababaran ee Maraykanka ayaa howlgal militari ka fuliyay bartamaha koonfurta Muqdisho. Xilligaas waxa ay heleen xog sheegaysay in Genaraal Caydiid uu madax sare kula kulansan yahay Hotel Olympic ee ku yaalla wadada Halwadaag. Waxaa howlgalka ka qayb qaatay 19 diyaaradood, 12 gaari iyo 160 askari oo xarintooda uga baxay inay howlgalka muddo 90 daqiiqo ah ku soo fuliyaan, balse waxay cagaha la galeen dagaal socday 17 saacadood oo xiriir ah. 50 daqiiqo markii uu howlgalka socday, diyaaradii ugu horreysay ee Black Hawk ayaa dhulka la soo dhigay. 20 daqiiqo kadibna diyaaradii labaad ayaa iyana dhulka la soo dhigay. Waxa uu ahaa dagaal daba dheeraaday oo habeenkii oo dhan socday ilaa laga soo gaaray 6:30 aroornimo. Waxaana la hareereeyay ciidankii howlgalka qaaday, waxaana loo baxday ciidan dheeraad ah si loo badbaadiyo oo aysan ugu gacan gelin taageerayaashii generaalka. Boqolaal Soomaali ah iyo 18 askari oo Maraykan ah ayaa ku naf waayay dagaalkaas. Qaar ka mid ah askartii Maraykanka ayaa jidadka Muqdisho lagu jiiday. Dhacdada oo fajac ku noqotay Maraykanka waxay soo dedejisay in gebi ahaanba ay isaga baxaan dalka. Gargaarkii ay sheegayeen inay u socdeen uu meesha ka baxay. Maraykanku waxay ku guuldareysteen inay gacanta ku soo dhigaan Genaraal Maxamed Faarax Caydiid, waxaana dhacdadii dagaalkaas ay askartii Maraykanka ku reebtay mahadho xanuun badan. Ilaa markii dambe laga sameeyay sida ay wax u dhaceen xilligaas filim la magac baxay Black Hawk Down, waxaana ugu dambeyn bishii March sanadkii 1994 si rasmi ah loo soo afjaray howlgalkii Maraykanku ka waday Soomaaliya. 33 sano kadib, Maraykanka ayaa weerar ku qaaday dalka Venezuela, wuxuuna xukunka ka tuuray madaxweynihii muddada dheer talada hayay ee Nicolas Maduro, sida uu Sabtidii sheegay madaxweyne Donald Trump. Tani waxay ka dhigan tahay faragelintii ugu xoogganeed ee Maraykanku ka sameeyo Latin America tan iyo duulaankii Panama ee sanadkii 1989. Trump ayaa qoraal uu ku daabacay barta Truth Social yiri, dalka Maraykanka wuxuu si guul leh u fuliyay weerar ballaaran oo ka dhan ah Venezuela iyo hogaamiyihiisa madaxweyne Nicolas Maduro, kaas oo isaga iyo xaaskiisaba la qabtay loona duuliyay dibadda dalka. Ka hor inta aysan dhicin weeraradii habeenimo ee Sabtida, Maraykanka ayaa ku eedeeyay madaxweyne Nicolas Maduro inuu maamulayo wax uu tilmaamay dowlad daroogo ku dhisan, isla markaana uu musuq u sameeyay doorashadii dhacday sanadii 2024, taasoo mucaaradku sheegeen inay si weyn ugu guuleysteen. Hogaamiyaha Venezuela oo ah 63 sano jir, hore uu ahaan jiray darawal bas, kana mid ahaa dadkii uu si gaar ah u doortay madaxweynihii hore ee Venezuela Hugo Chavez ka hor geeridiisa si uu u bedelo sanadii 2013, ayaa beeniyay eedeymahaas wuxuuna sheegay in Washington ay doonayso inay la wareegto kaydka shidaalka ee dalkiisa, kuwaas oo ah kuwa ugu waaweyn ee adduunka. Maraykanka ma uusan ku samayn faragelin toos ah oo noocaan ah gobolka uu saameynta ku leeyahay tan iyo duulaankii Panama ee dhacay 37 sano ka hor, kaasoo lagu riday hogaamiyihii militariga Manuel Noriega, iyadoo oo la cuskanayo eedeymo la mid ah kuwan.
dowladda Venezuela ayaa sheegtay in rayid iyo askarba ay ku dhinteen weeraradii Sabtidii, balse ma aysan bixin tiro rasmi ah oo khasaare ah. ciidamada weeraray dalka Venezuela waa isla ciidamadii weeraray Generaal Maxamed Faarax Aydid. haddaba maxay ku kala duwan yihiin Maxamed Faarax Aydid oo Maraykanku ka quusteen soo qabashadiisa iyo madaxweyne Nicolas Maduro oo soo qabashadiisu ay qaadatay saacado yar kadib ku dhawaaqista howlgalka?